السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مدوني سأنا نقطة هذا السوتشيري أنا عادي إهين ولقى صاحبك قيمها بدنا أم صاحبتي قيمها بدني مسؤول استعطيتك عليه ودوني أنا موضوع تشيلسو كبعد مسكك هيا وحي أتشيلين لهن أو موضوع سوتشيري ملوير أو ما بقضاء لما أنتن وحن قسم أنا هي هدي أنا هيرضو إن أنا مال ما كم ذا أرتو سهر استعمنا أو برشة سهر استعمنا تاسو nagu kalifto mararka qaarkood inaan ku fashilino kuna ceeboono meesha iskagana tagno anagoo aan gaarin danteennii. Maanta waxaan ku wadaa saaxiibka qiimaha badan oo 7 qodob oo ka saaciday doonto inaad noqoto hadal soo jeediye aan laga daba hadlin. Hadal soo jeediye markuu masraxa soo fuulo loo sacabiyo. Hadal soo jeediye markuu khudbaynayo dadka dhan ay u riyaaqaan afkaartiisana iyo wuxuu doonayo dadka la wadaago. Haddaba waxa isweydiin mudan hadal soo jeedinta ma loo dhashaa mise wax la baran karo. haddaba dadka laba loo kala qaybiyaa qaybna hiba ay Ilaahay u siiyay waa qaybta loo yaqaan aftahaniin qaybna way barteen balse mar walba waxa fiican oo aad u muhiimsan kuwa bartay waayo wax walba waa barasho dadka 99% way barteen saddex ka soo hardayna waa kuwa u dhashay aftahaniin ah laakiin qofka aftahanka ah iyo qofka barashada u galay si fiican u bartay isku mowduuc noqon mahayaan. Maanta waxaan ku wadaa 7 qodob oo ka dhigi doonta hadal soo jeediye aan laga daba hadlin. Markii aad soo fusho masraxa ama dadka hortooda soo istaagto waxa aad ka hadlaysaa haddii aadan aqoon u lahayn waxa ay yihiin ama nidaamka aad soo nidaamsan way isku yaacayaan ka bacdina waxaad noqon doontaa soo taagane aan wax laga faa'iidin. 7 qodob maanta waxaan ku soo khulaasiyay buugga la yaqaano Talk Like uu iska leeyahay Carmine Gallo ninkan loo yaqaano waa nin ku takhasusay dadka si looga dhaadhacsiyo afkaartaada ama wax badan ka hadla buug badan uu ka qoray sida loo koriyo bashariyada qofka looga dhigo qof ka hadli kara mowduuc doono. Markii aad doonayso dadka inaad la hadasho muhiimadaadu waa in afkaartaada aad gaarsiiso dadka balse haddii aadan aqoon lahayn qaabka dadka loola hadlo waxaad kaan kartaa in aad dadka hadalka gaarsiiso ama aad ka baqdo. dadku markay dadka soo hor istaagaan way baqaan way gargariiraan way isku naxaan taas waxaa keenaysaa 2 qodob. qodobka koowaad naftooda aysan kalsooni ku qabin. qodobka labaad waxay ka hadlayaan aysan aqoonin ama ay soo diyaarsanin. haddii adigoo waxa ka hadlaysa aan soo diyaarsan ama aad aqoon waxa ka hadlayso ama naftaada aad kalsoonayn waa ku fashilmaysaa. sidoo kale dadka waxay la baqaan naftooda ay soo marinin practice fara badan ama tajriba fara badan. haddii mar walba aad ka baqdo dadka hadalkooda ama mar walba aad ka baqdo dadka inaad la hadasho weliga meesha ka dhaqaaq mayso. tusaalaha ugu fiican ama talada ugu fiican ku siinaya waxay noqonaysaa dadka hadalkooda weliga ha ka baqin waayo waxaan kuu sheegayaa xikmad yar aad u muhiim ah. haddii dadka hadalkooda laga badbaadayo waxa ka badbaadi lahaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo Ilaahay. dadku maxay ku dhaheen Ilaahay inna Allah thalithu thalatha إلهي وصدح بيدهن إلهينا هو يراهدي وما من إله إلا إله واحد. مركا dadku haddii ka badbaadahayaan cid ka badbaadiso Ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ka badbaadi lahaa. Nabi Muhammad maxay ku dhaheen innaka la majnuun in hada illa asatirul awwalin wama anta illa kadhab. waxaas oo dhan nabi ku sheegay marka khayru khalqillaahi oo Nabi Muhammad ahaa ya Allah subhanahu wa ta'ala dadka hadalkooda kuma badbaadin. marka weligaa ha ka baqin dadka hadalkooda adigu waxa aad doonayso samee dadka hadalkooda ha ka baqin. haddii mararka qaar lagu yeero dadka hadalkooda inaad ka hadasho ama masraxa aad ka hadasho ama aad soo jeediso project soo jeediso weligaa ha ka baqin waayo haddii maalin aan fashilato maalin aan ceeboodo maalinka ku xigana waxaad noqon doontaa professional. dadka ugu saameynta badan adduunka hadaladooda hadda aad arkayso maalin waxay ahaan jireen kuwa ka baqa dadkeena soo hor istaagaan sida adigu uga baqaysa maanta kale. maanta wixii ka dambeeya noqo xidig dadka hadalkooda ha ka baqin hor istaag ardayinka mujtamacaadka bulshooyinka masaajidada meel walba oo aad fursad ka hesho. haddaba 7 qodob maanta aan kugu soo dhaweeyo saaxiibka i daawanayo. qodobka koowaad ka hadal waxa aad jeceshahay. markii aad doonayso inaad mowduuc ka hadasho ama aad doonayso inaad bulshada wax la wadaagto ama aad doonayso inaad ardadaada wax kala hadasho nooc doonta ha ahaatee mowduuca ka hadlayso ha ahaado mowduuca aad jeceshahay. qodobkaasi maskaxda ku qoro
mawduuca aad jeceshahay ka hadal, weligaa iyo abadanka ha ka hadlin mawduuc aadan jeclayn. haddii aad ka hadasho mawduuc aadan jeclayn ama lagu khasbo, waxaad noqon doontaa mid fashilmay, dadkuna ay ka maadaystaan. tusaale aan ku siinaya saaxiibka qiimo badan, ama su-aal yaraan ku weydiinayaa, cunto aadan jeclayn ma lagu khasbi karaa? cunto aadan weligaa cunin ama aadan jeclayn ma cuni kartid. haddii lagu khasbana waa ku xanuunsanaysaa. sidaas oo kale dadka haddii aad uga sheekayso mawduuc adigu aad jeclayn, way ku xanuunsanayaan, dadkuna way ku nacayaan, way kaa kala tegi doonaan, adiguna waxaad dareeri doontaa nusqaan iyo fashil. qodobka koowaad, weligaa ha ka hadlin mawduuc aadan jeclayn. ka hadal mawduuca aad jeceshahay, mawduuca hibada aad u leedahay, mawduuca naftaada ay ku raaxaysanayso, mawduuca akhrintiisa iyo diyaarintiisu aad ka jeceshahay wax walba. waayo mawduucan waxaa lagaga baahan yahay markaad ka hadlayso inaad soo diyaariso. mawduuca aad jeclayn kama hadli kartid, waayo maba jeclidba. qodobka labaad, projectigaaga ama mawduucaaga soo dhexgeli qiso sheeko ah. marka ugu horreysa dadka aad soo hor istaagto waa in dadka uga sheekaysaa qiso dhacdo, waxay ku qoslaan. dadku markay qoslaan kabacdi ay soo jeensadaan, waxa aad doonayso u sheeg. balse markaad dadka soo istaagto haddaa ku bilowdo, waxaan doonay inaan ka hadlo waxaas, magacaygu hebel wey, xaggaasaan deganahay, halkaasaan ka imaaday, mawduucaan soo diyaarsay, dhib badan baa kasoo maray, waxaas looma baahna. dadka uga sheekee qiso yaro macaan, markay qoslaan u dhexgeliya mawduuca aad doonayso. qodobka labaad waa mawduuca kusoo dar qiso yaro sheeko qosol leh, dadka qosliya. qodobka saddexaad, soo diyaar garow. qodobkani wuxuuna leeyahay markii aad doonayso inaad mawduuc jeediso, waxaa laga baahan yahay saaxiibka qiimaha badanow in aad soo diyaar garowdo nafsad ahaaneed iyo jinsi ahaaneed. dharkaaga, nadaafadaada, soo diyaar garow. dhinac walba iska soo dhis. mawduuca ka hadlaysa markaad soo xifdiso oo aad soo diyaar garayso, muraayad hor istaag, muraayada ku akhri, soo jeedi, iska duub, saaxiibada la wadaag. qofka aad ugu jeceshahay saaxiibada waxaa ku tiraahdaa, saaxiibo maanta project baan leeyahay, iga barwaare. markuu kaa barwaareeyo, meelaha qaladka iga saardhe. saaxiibkaasna waa inuu ahaadaa saaxiib aad isjeceshihiin oo aad isku kalsoon tihiin. markii mawduuca soo diyaarsato oo aad soo xifdiso, qodob usoo xifdiso, waxaad samaynaysaa, waxaad hor imaanaysaa muraayada, waxaad ku akhrinaysaa mawduucaagii, waxaad hortagaysaa saaxiibada, waxaad leedahay iga barwaaray. hadda ka hor nin baa wuxuu igu yidhaahday markii aan baranayay hadalka oo aan rabay inaan dadka wax ka horjeediyo, oo waagii aan yaraa waxaan samayn jiray, waxaan u tegi jiray idaha iyo idaha meelaha fadhiya, xoolaha hadda u tago ayaan ku dul akhrin jiray. hadhow waxaan noqday hadal soo jeediye aan caadi ahayn. marka qodobkani wuxuu leeyahay soo diyaar garow, dharkaaga soo hagaaji. haddii dadka aad la hor timaado dhar rifrif leh, timahaaga u busaaradaysan, adigoo si u rafaasan, dadku kuma dayan doonaan, balse labiskaaga ha ahaado labiska ugu quruxda badan. haddii aadan labis lahayn, saaxiibada kasoo caariyeyso. maalinka aad projectiga leedahay ama mawduuca aad leedahay, wax lagaga baahan yahay inaad usoo labisato sidii boqorkii oo kale. dadku waxay danayn doonaan hadalkaaga iyo jimsigaaga, waayo marka aad hadlayso dadku waxay ku dhegagi doonaan ama isha la raaci doonaan dharkaaga. haddii dharkaaga ku arkaan dhar rafaadsan, waxaa adkaan doonta mawduucaas aad sheegayso in lagaa qaato. qodobka afraad, dadka bar wax cusub. haddii aad doonayso inaad noqoto hadal soo jeediye qurux badan, dadkuna ay jecel yihiin, waxaa lagaga baahan yahay in aad dadka u sheegto wax cusub. tusaale, maanta waxaad doonaysaa arday in la hadasho, waxaa laga baahan yahay inaad soo diyaar garaysato oo soo diyaarsato mawduuc aysan ardaydu aqoonin. balse shalay mawduuci laga hadlay oo dar hore laga hadlay oo bishii hore laga hadlay, haddii maanta aad ka hadasho micno soo kordhin mayso. si ardaydu kuu jeclaadaan, haa soo jeediye fiican u noqoto, waxaa laga baahan yahay inaad soo diyaarsato qodobo muhiim ah oo horey aan loo aqoon. Soomaalida waxay ku maamaadaa wixii cusub baa caalamka jecel. marka waxaa laga baahan yahay inaad soo diyaar garaysto wax cusub, sababtoo ah dadkan waxay doonayaan inay kaa faa'iidaan mawduuc aysan aqoonin. balse haddii aad ka hadasho waxaan micno lahayn ama qiimo lahayn, ma noqonaysa hadal soo jeediye. waxaan kugula talinaya markasta, noqo hadal soo jeediye fiican, si aad u noqoto soo diyaar garayso qodobo muhiim ah. qodobka shanaad, ha ka badanin mawduucaaga 18 daqiiqo. haddaba mawduucaani aan soo diyaar garay maanta oo loo yaqaano tall like to TED, u hadal si TED oo kale, oo qoray Carmen Koenig lagu magacaabo hayay. wuxuu leeyahay
dadka ugu saameynta badan adduunka waxay isku waafaqeen ama dadka kasoo jeediya xarumaha loo yaqaano TED-ka 18 daqiiqo haddii ka badato bas dadku wayna ku nacayaan. Ha ka badan mawduucaaga 18 daqiiqo ka badan. sidoo kale wuxuu leeyahay Carmen Galo wuxuuna leeyahay haddii aad doonayso inaad ka badiso lacag duruufta kula gasho markii 10 daqiiqo ah hadasho dadka waxa u dhexgelisaa qiso qosol leh. markii dadku shucuurtooda ay kacdo dadku si fiican u soo jeedsadaan ka bacdi u sheeg waxa aad doonayso. balse haddii hal saac hadlayso oo dadka oo dhan dabada isku xirta qisooyinkii wixii oo dhan dadku way ku nacayaan. waxaa laga baahan yahay markii aad hal soo jeedinayso 18 daqiiqo ka badan. haddii aad ka badinayso oo duruufta ay kula gasho waxaa laga baahan yahay saaxiib qiimaha badanow in aad 10 daqiiqaba aad dhexgeliso qiso. uu sheegayo ninkan ku takhasusay fanul kalaam. qodobka ku xiga oo lixaad adeegso shanta dareemayaal. marka dadka alla hadlayso waxaa laga baahan yahay inaad isticmaasho dareemayaashaada shanta ah. tusaale ahaan mawduuca ka hadlayso waa mawduuc murugo leh. haddii aad ka hor qosasho adigoo ka hadlaya qaraxii ka dhacay Soomaaliya 14 Oktoobar, haddii aad ardada hortooda ku qosasho ama dadka hortooda ku qosasho tusaale ahaan madaxweynaha tahay ama waxaa tahay nin caana dad baa la hadlaysaa waxaad ka hadlaysaa qarax dhacay ama musiibo dhacday waa qoslaysaa. dadkan waxay ku arkayaan inaad tahay qof aan caqli badnayn. sidoo kale waxaa ka hadlaysaa aroos ama farxad ama wiil dhashay ama farxad baa ka hadlaysaa oo is-oohinaysaa ama muruga kaa muuqata. lama rabo markasta waxaa laga doonayaa meesha aad markaa joogto inaad la fanqasho. balse haddii aad hadda meesha joogtay aadan garanayn adigoo meel murugo jooga aad qosasho adigoo farxad joogana aad naxdo markaas dadka aad la hadlayso xaaladday ku sugan yihiin ma garanaysid adiguna xaaladdaa ku sugan tahay xaalad ka duwan ayay kuu qiimeynayaan. qodobka 7 ugu dambeeya adigu ahow. waxaan ka wadaa adiga ahow markii hadalka aad soo jeedinayso oo dadka aad la hadlayso oo hortaagan tahay ha iska dhigin cid kale. dadku waxay dhahaan show off ama qof kale ayuu iskoobiyeynaya. dadku laba qaab way neceb yihiin qofka kibraaniga ah iyo qofka dadka kale matala. adigu naftada ahow. dadku ha kugu jeclaadeen ama ha kugu naceen. adiga indaawanaya waxaad leedahay qaab aniguna waxaan leeyahay qaab. anigu adiga kuma matali karo adiguna aniga inaan matali kartid. adigu qaabkaa tahay ahow dadku ha kugu jeclaadeen ama ha kugu naceen. weliga cid kale ha matalin. adigu waxaad tahay qof insaan ah qurux iyo qiimo Ilaahay siiyey hibooyin gaar Ilaahay ku siiyey hal wanaagsan baa Ilaahay ku siiyey didiila Ilaahay ku siiyey hogaamiye fiican baa Ilaahay ka dhigay. adigu is ahow. cidii kugu jeclaata kugu jeclaato cidii kugu nacsana kugu nacdo. weliga cid kale ha matalin. haddana waxaan soo gaarnay gabagabadii iyo gunaanadkii. maanta waxaan kula wadaagay 7 qodob. 7 qodob markii hadal aad soo jeedinayso haddii meel aad ku qorato oo aad dabaqdo xaqiiqatan waxaad noqon doontaa hadal soo jeediye aan caadi ahayn. waxaan kaaga digi doonaa saaxiibka qiimaha badanow markii dadka aad hortaaganta oo aad la hadlayso inaad gargariidho. taasna waxaa keenaya waxaan garanayn waxa ka hadlayso ama naftaada kuwan qarsooni. waxa badan akhri waxa badan ayaa ogaan doontaa. hadda intaa ku kulmi doona mawduuca mid lamid ah waxaan kaga tagi doonaa saaxiibada qiimaha badanow noqo xidig noqo hadal soo jeedin caadi ahayn. haddii aad aaminsan tahay hadal soo jeedinta waa loo dhashan aftahanimada waa been 97% waa la bartaa. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.